وحيدي كشيكينا يا قصة مركان جوغي نروي والدكتور موجود مسجد بان تجي مغرب كي أن كلمة قرنا مركان صلاة دي أن تكني بانين دل يرو أسهل كيسو باكستاني ياهي سيا شيء ماشي كل شيء أو أف نرويجي جاي يغان أي أيام حقول يا شيخ أنا جوهرت هو حال وعندك كان دعاء ده في سبيل الله وبحي دعوتك شقيوي وحير إلهي سبحانه وتعالى وحيقوم من نجتي وحنكون ده لا بويري نرويجيين تان الله الله أن دينتك الله الله وإسلامك ويرا بالكست ويرا الله ما أما صدح با يعني سوحر الجليا وإلهي سبب يقدر عينه إسلامان مركب ما أنت من مدبان وضع أو حد دوني إنه أشهاده أو إسلامه وحن ربعنا أدو شهادة وقبته خير الله كسيان الدام إنتان قل كان إنت كليون وحبوع كلمه يدانا كفايدي سن فهو خير لي وحكست يا خير بدن خير الله كسي جزاك الله خيرا وكابويل وويل كادير يوروب قروح ذا بدن هرتيدو سو فريشي وحي ركي باكستاني قاعد شيخ وحن كلام قاعد سنه يا بويري انو دعوده iyo kalimaadka aan kula hadlo baan rabaa in aan ku soo bandhigo hadda waan la hadlay hortaadan kala hadlaya hadii waxay ka khaldan yihiin isax anigu igu leeyahay mogta hadii waxay ka khaldan yihiin isax waayahay yar Soomaaliya iga tarjumaya tarjuma fawriya dacwad yaro muujasaho ajaa'ib lahu tawxiidki iyo nubuwadii iyo risaaladii iyo iimaaniyadkii iyo aakhiradii oo kooban oo isku qofalan ilaa qofka dacwo isku mashquuliya ilaahay baa waafajinaya oo ajaa'ib loo meesha ku dhuftay yarkii buu af Norwich buu kula hadlaya yarkii Soomaaliga anigu ii tarjumaya waxa uu leeyahay kadib wuxuu ku yiri ma maqashay hadalkayga kii wuxuu yiraahdaa ma fahamtay ha ma rumaysantahay waan rumaysanahay ma cid baa diinta kugu qasabtay maya soo adiga ikhtiyaarkaaga martid inaad u gashay ha fadlan ya sheekh shahaadatinka u laqan hadda diyaar way shahaadatinka baa u laqanay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shahaadatinka tarjuma oo bil norweji buu hadana ugu dhuftay wa ku dhawaaqay alhamdulillah allahu akbar balaydi ninka wala mu'anaqay isagii waa farxay inaan kala tagnaan damacnay oo markii aan ducaynay wuxuu yiri sheekh arrin baa dhiman farista yarkii baan oranay Pakistaaniga farista waa fariisan waxaan rabnaa buu yiri wiilkan hadda soo islaamay ee dhalinyarada ah inuu isagu noo duceeyo koow oo maxaa dhahay wuxuu yiri laana isagu dambigiisa oo dhan ilaahay wuu dhaafay safxadiisu waa faaday laakiin anaga dambi baa naga buuxa marka isagu ha noo duceeyo isaga marka ka dal wallahi waa arrin wanaagsan baan وصح قرآن كيف قلت هلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والإسلام يجب ما قبله وبحكمة وين مركا كيبو يركبوا حكولي ندعي كيبو حولي دعاء ما قال أنا كو لقنا إياه يقدر بدبوي راشو كدبه اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ادخلنا سيبا دعينا نقول آمين بلنا سيبا دعينا markaas wuxuu yiri yarkii Pakistaaniga wuxuu yiri anigu fursad baan ka dhigtaa mid kasta oo soo islaamiyo waan ka ducaystaa لانه dambi mar haduu la ilahay insha Allah ducadiisa waa maqbuul